warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay agaarka taalada danjirka Daasoon ee magaalada Muqdisho kaas oo si weyn looga maqlay qaraxa joogtiisa magaalada Muqdisho qaraxa kadib ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa riday rasaas badan oo goobta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku baadhaan gaadiidka aada wadada madaxtooyada ayaa uu qaraxu ka dhacay waxaana kadib ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay rideen rasaas badan warar dheeraad oo soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxa la eegtay sarkaal ka tirsan ciidamada militariga oo haweenay ahayd oo lagu magacaabo Faadumo Cali Raage waxaana la arkay qayb kamid ah jirkeega warar kale oo helino ayaa sheegay in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sugnaayeen qoobta uu qaraxu ka dhacay waxaana dhaawac la sheegay inuu ka soo gaaray xildhibaan Cabdikariin Shabeel oo ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ku dhawaad 3 ruux oo dhaawaca iyo 2 qof oo dhimasho ayaa lagu arkay goobta uu qaraxu ka dhacay walow aan la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxani xalay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya la dhigay wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ayagoo baadhayay dhammaan gawaadhida wadooyinkaasi soo mara si loo xaqiijiyo amaanka magaalada Muqdisho waxa sidoo kale jiray digniino dhanka amaanka oo la wadaagay hay'adaha amaanka taas oo la xiriirtay qaraxyo ay qorsheynayaan kooxda xarakada Al-Shabaab inay ka geystaan magaalada Muqdisho qaraxani ayaa looga shakiyay kooxda xarakada Al-Shabaab oo iyadu aalaba qaraxyo ka geysata gudaha dalka Soomaaliya geesta kale ururka xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay qaraxani isla markaasina ay la beegsadeen saraakiil ciidan iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xilligaas ku soo jeedeen goobta lagu baadho gaadiidka doonaya wadada madaxtooyada dawladda federaalka Soomaaliya hormarta saraakiil ciidan iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo madax ka tirsan dawladda oo ku sii jeeday dhanka madaxtooyada ayaa qaraxa la kulmay Naasir Cabdilqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame Badda Cas 24 TV magaalada Hargeysa